صفوان بن أمية أي عمر بن وهب نك اللي ورجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا ولا قلايي تضباطن قال انا النبي واقف شو وخره او قاتي لبدنا وقرابو عمر بن وهب inankiisii wuxuu ku jira toddobaadka la xidhay Madiina loo qaatay buu ku jira xilli waqti dhahir ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine سمعتي قريشيد بودلي حدان هلي لها ما انت الدين اللي يقول لها عد لو راعو وبدكيغا إنا يقضي عمان أن كبقى ينا عد يكفالق قاد هدان هلي لها مقالة المدينة انتون تقو حيالة دا كنت تقنا أنو ما انت وان هايستايو إنك يجيبا يحرانون اتصوان أوران لهاي محمد أنيقا سو خارج لها بودي صفوان بن أمية أيا كفا إذا استو يري ما سمين كرتا هاوان سمين كرا عيالك أغانا أنيقا إيكين وعيالك إيكي كمين نغانيان دين كان لغو غلay hayn aniga halay soo raacabu kay wala badoodo kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer oo soo socday aalaadkan zamankan imikaas ku turtuurayna Facebook iyo WhatsApp iyo balaayajin ma jirin zamankaas oo soo socday Madiina soo galay Umar bin Wahab isagoo seeftiisa jeeni qaran مر اللي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتينا واكا جيني قارنه قورته كسيتي اردو نبيك الاليه يقول نبيك انه اجوج نبيك كالاليه صلى الله عليه وسلم شر مو سعوداي خير ما سعوداين مركزو يا رسولك الله شيغو لو نبي الله عمر بن وهب سو غله مغالده تسامحن عمر ها مركبو نبي غوري سو غليا loo soo galiyay xaadu timidey buu ka yidhi waxaanu imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysaana waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yidhi oo ka wada hadalno markaa buu nabigu ku yidhi seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hadda wuxuu yidhi qabbaha allah buu ilaahay haba duleeyay seeftane ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano سعودي تضباطنا نقل لا يتضباطنا نقص وقفاشا نقص وحريما مركب النبي كويد فريسة بودي أرنك ما هارك هذا صعود أرنك هذا صعود أنا كاغا ورمي وفريست هذا يا صفوان بن أمية ساعد مركي هلك حلقة أحد ما الهبلايات فريستين مكة مركزات سوق قالتين دقال كي بدر نبتي ليني جيستي مركزات اللي هدان هل لها الدين كي قاعد ما أنت لور راعو وبدكيغنا aanu dhiibo iga kafiil noqoto hadaan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo taqallus lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida Ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad والله بان ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa allah ilaahay mooyaan إلهي بان كوغو داريي بودي انغونا وان كو رومين اديغانه إلهينا وان رومين التوحيد كاي قربو كودي halkii buu ku qoray Ilaahay marka waxa duwada ka dhacaya ka og waa Ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa Ilaahay ishaadan in wax aragto Ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho Ilaahay amarkiisa u baahan tahay Ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma
imra'atu abi lahab ayaa nabigeenna u timid calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhagax sidata. abi bakar bay u timid halkan fadhiya, rasuulkuna uu ag fadhiya sallallahu alayhi wasallam. abu bakar iyo rasuulku dhinac isku hayaan. markaasay leedahay abu bakar aawa saaxiibka maanu ileeyahay naar baad ku dambayni doontaa, oo gabaygiisa igu soo daray. gabay bay quraanka u haysataa moogta. abu bakar rasuulku eega, haddaan maanta muxamed aanu aan arki lahaa bay tidhi, dhagaxa isaga nustee madaxan basho ka siin lahaa bay tidhi. markay iska noqotay buu abu bakar nabigu soo eego, yaa rasuul allah mayna ku arkayn, may aniga aragaygu arki lahayd baa ilaahay ka qaaday buu yidhi. inagu hebel muxuu wax ku arkaa, ishu wax ku arkaa baan leenahay, may amarka ilaahay buu wax ku arkaa. dhegtu wax ku maqlaa, may dhegtu amarka ilaahay bay u baahan tahay inay maqasho. lugtaadu inay socoto ilaahay amarkiisa u baahan tahay. khaaliq waa ilaahay. marka ilaahay macrifadiisu waa waajib, qof kastoo muslima laga rabaa ilahay inuu dhab u garto. tasarufaadka caalamka ilaahay baa iska leeyahay.